gaari baabuurta la yidhahdo saarasta gaari horta waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motoorka ka tirsan oo dhaawaca marka laga reebo muraayadaha iyo derbiyada kusoo dumay dadka uu saameeyey aniga aan ka mid ahay anigu waxaan fadhiyey markaas oon ku jiro shaqo tahay xafiiska qofka bulshada lagu adeego radio kulmiya qaybtaasa ku yaala dhammaan wixii muraayada ahaa iyo agabkii oo dhan waa nagu soo daateen marka dhaawacyada derbiyada kusoo dumay mooyaane qof kale dhaawaca hadda isbitaal yaalla ma jiro waaya Ibrahim marka u soo laabto goobtii uu qarxu ka dhacay gaariga qarxay nooceed ku tilmaami lahayd haddii aad xataa haraagiisii waxaad aragtay dadkii dhaawaca uu soo gaarase sidee gurmad loogu sameeyey haddee goobtiibaad igala soo hadlaysaaye horta inkastaan arkin baabuurka laakiin dadkii iga dhowaa oo meesha wax ka dhaceen u dhowaa ilaahay si ka badbaadiye oo caabad qaba ay iigu sheegeen noociisa inuu ahaa gaari baabuurta la yidhahdo saarasta gaari horta waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motoorkiisa qaybo ka mid iyo beredi diban mooyaane waxba lagama arki karo waxaa kale oo marka dadka dhaawaca uu soo gaaray inkastoo dhaawacyadu ay fudud yihiin meesha waxaa ku yaala xarun caafimaad markiiba dadkii ugu horreeyey ayaa loo daabulay loo dadguray hadda aan kula hadlay weli waxaa socda ururinta hanaadiga dadkii rayidka ama dadkii kale ku dhintay meedadkooda iyo waddada yaallaan waaya marka gaariga dhinacuu kugula beegmaa intuu ku dhacay marka uu qarax uu sameynayay ma wuxuu ka yimid wadadan naasaab loo aada mase wuxuu ka yimid wadadan kale ka imaata xaruntii hore ee nabad sugiddu ay lahayd ee godka jilco inkastoo hadda aanan sheegi karin laakiin marka aan ka tusaale qaadana cabdirasaaq meeshuu ku dhacay gaarigu waxa weeyaan guriga hooyooyinka iyo tiyaatarku way isku soo horjeedaan waxaa ku yaala isgoyskaas waxaa bar control uga samaysantaa uga dhisantaha ciidan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxteeda meeshaas marka meesha uu ka dhacay burburka iyo meesha markaa qiyaasina marka dhinaca saadka la fiiriyo uu baabuurka ka qarxay waxaa muuqanaysa inuu ka yimid dhinaca godka jilcow inkastoo hadda aan toos u caddayn karin oo aan dhigi karin meeshaas kuli laakiin marka loo fiiriyo qiyaasta iyo saadka baabuurka uu ku jiray marka loo eego waddada ka timaada qorax ka soo dhinaca godka jilcow waddadaas waaya ugu dambayntii marka jawigu inkastoo weli uu kacsan yahay sida aan ka dareemayo teleefoonkaagana uu soo qabanayo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay inteed ku qiyaasi lahayd yaa badan والله هذا شيء والله ما قياسي كرمك اللامي قاعد تستخدم أنا أتمنى كوجب على عقول وين كمان تستخدم اللامي قاعد تركورتيسا إلا لقد جارو تعالى ده حاوطاكو وحيا لا دب ميلس كدب بدن أيا يلا ورنت على قوسين كده قف عنك وأنت يقف لبعدا طيب كمية تنتشر كيسا طيب قارك السر قارك الضمبة مركا قارك قد يلبع يوقف أيا يندوك كده جبنية مركا نفس تريكم ركض يقام بينك واي هاي برهان مجرى قصة بكل ما كترسن أو دعوة خلق فيه مرايدة يدربيه بتصدمي قفك وسامي بعدك عن كم ده أنا واحد بدي مركز أن كجرا شغلتي حفيزك قفك بالجودة اللي قاعده أريد كل ما قيمته سبيل تمام مرايدة إيو أقف فيه ودم وأنا بصوت عسل مركز دعوة يدربيه بتصدمي يعني قفك دعوة هذا الشيء يعني لم يدري عبد واي برهان مركز أوصل لابتو قوبتي وقرح وكدعي gaariga qarxay nooceed ku tilmaami lahayd haddii aad xataa haraagiisii waxaad aragtay dadkii dhaawaca uu soo gaarase sidee gurmad loogu sameeyey haddee goobtiibaad igala soo hadlaysaaye horta inkastaan arkin baabuurka laakiin dad iga dhowaa oo meesha wax ka dhaceen u dhowaa ilaahay si ka badbaadiye oo caabad qaba ay iigu sheegeen noociisa inuu ahaa gaari baabuurta la yidhahdo saarasta gaari horta waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motoorkiisa qaybo ka mid iyo beredi diban mooyaane waxba lagama arki karo waxaa kale oo marka dadka dhaawaca uu soo gaaray inkastoo dhaawacyadu ay fudud yihiin meesha waxaa ku yaala xarun caafimaad markiiba dadkii ugu horreeyey ayaa loo daabulay loo dadguray hadda aan kula hadlay weli waxaa socda ururinta hanaadiga dadkii rayidka ama dadkii kale ku dhintay meedadkooda iyo waddada yaallaan waaya marka gaariga dhinacuu kugula beegmaa intuu ku dhacay marka uu qarax uu sameynayay ma wuxuu ka yimid wadadan naasaab loo aada mase wuxuu ka yimid wadadan kale ka imaata xaruntii hore ee nabad sugiddu ay lahayd ee godka jilco inkastoo hadda aanan sheegi karin laakiin marka aan ka tusaale qaadana cabdirasaaq meeshuu ku dhacay gaarigu waxa weeyaan guriga hooyooyinka iyo tiyaatarku way isku soo horjeedaan waxaa ku yaala isgoyskaas waxaa bar control uga samaysantaa uga dhisantaha ciidan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxteeda meeshaas marka meesha uu ka dhacay
markaa qiyaasna marka dhinaca saadka la fiiriyo uu baabuurku ka qarxay waxaa muuqanaysa inuu ka yimid dhinaca dadka jilcow inkastoo hadda aan toos u caddayn karin oo aan dhihi karin meeshaas kuli laakiin marka loo fiiriyo qiyaasta iyo saadka baabuurka uu ku jiray marka loo eego wadada ka timaada qorax ka soo dhinaca dadka jilcow wadadaas waaya ugu dambayntii marka jawigu inkastoo weli uu kacsan yahay sida aan ka dareemayo teleefoonkaagana uu soo qabanayo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay inteed ku qiyaasi lahayd yaa badan والله هذه شافوا لما قياسي كره مثلا لامي اما فنانك وقبعد يقول وين كبنات يسكتوا لامي يا فركورتي الا لقد جارو تعالى حاول تبقى وحيا لا دب ميلك دب بدن ايا يلا ورنت على قوسين كده قف gacan go'an tahay qof laba cada qayb kamid ah dadka jirkiisa qayb qaar ka dambe marka qaarkood waliba iyaga fiican ayaan dugsiga oo gubanaya marka telefoonka dadka ka bixin way ma jiro qof soo kulmay ka tirsan oo daawaca kala qeybo muraayadaha iyo darbiyada ku soo dumay dadka oo saameeyay aniga aan kamid ahay anigu waxaan fadhiyay markaas oo ku jira shaqadahay xafiiska qofka bulshada lagu adeego reeri kulmay qaybtaas ku yaala dhammaan wixii muraayadaha iyo agabkii oo dhan waa nagu soo daateen marka daawacyada darbiyada ku soo dumay yani qofka daawaca hadda isbitaal yaala ma jiro way Ibrahim marka u soo laabto goobtii uu qarxu ka dhacay gaariga qarxay nooceed ku tilmaami lahayd haddii aad xataa haraagiisii waxaad aragtay dadkii dhaawaca uu soo gaarase sidee gurmad loogu sameeyay haddee goobtii baad igala soo hadlaysaa caadada horta inkastoo aan arkin baabuurka laakiin dad iga dhowaa oo meesha wax ku dhaceen u dhowaa ilaahay si ka badbaadiyo oo caawbad qaba ay iigu sheegeen noociisa inuu ahaa gaari baabuurta la yidhahdo saarasta gaari horta waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motoorkiisa qaybo kamid iyo beradi diban mooyaane waxba lagama arki karo waxaa kaloo marka dadka dhaawaca uu soo gaaray inkastoo dhaawacyadu ay fudud yihiin meesha waxaa ku yaala xarun caafimaad markiiba dadkii ugu horreeyay ayaa loo daabulay loo dabguray hadda aan kula hadlay weli waxaa socda ururinta haraadiga dadkii rayidka ama dadkii kale ku dhintay meedadkooda iyo waddada yaallaan waaya marka gaariga dhinacuu kugula beegmaa intuu ku dhacay marka uu qarax uu sameynayay ma wuxuu ka yimid wadadan naasaab loo aada mase wuxuu ka yimid wadadan kale ka imaata xaruntii hore ee nabadsugudu ay lahayd ee godka jilco inkastoo hadda aan sheegi karin laakiin marka aan ka tusaale qaadana cabdirasaaq meeshuu ku dhacay gaarigu waxa weeyaan guriga hooyooyinka iyo tiyaatarku way iska soo horjeedaan waxaa ku yaala isgoyskaas waxaa bar control uga samaysantaa uga dhisantaha ciidan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxteeda waa meeshaas marka meesha uu ka dhacay burburka iyo meesha jira markaa qiyaasna marka dhinaca saadka la fiiriyo uu baabuurku ka qarxay waxaa muuqanaysa inuu ka yimid dhinaca dadka jilcow inkastoo hadda aan toos u caddayn karin oo aan dhihi karin meeshaas kuli laakiin marka loo fiiriyo qiyaasta iyo saadka baabuurka uu ku jiray marka loo eego wadada ka timaada qorax ka soo dhinaca dadka jilcow wadadaas waaya ugu dambayntii marka jawigu inkastoo weli uu kacsan yahay sida aan ka dareemayo teleefoonkaagana uu soo qabanayo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay inteed ku qiyaasi lahayd yaa badan والله هذه شافوا لما قياسي كره مثلا لامي تسكتوا اما فنانك وقبعد يقول وين كبنات يسكتوا لامي يا فركورتي الا لقد جارو تعالى حاول تبقى وحيا لا دب ميلك دب بدن ايا يلا ورنت على قوسين كده قف gacan go'an tahay qof laba cada qayb kamid ah dadka jirkiisa qayb qaar ka dambe marka qaarkood waliba iyaga fiican ayaan dugsiga oo gubanaya marka telefoonka dadka ka bixin waayahay burhaan diini faarax ayuu ahaa oo ka mid ah wariyaasha raadiyo kulmiye muqdisho oo goobta uu qaraxu ka dhacay si toos ah u joogay isla markaana qadka telefoonka ugu waramayay barnaamijka saanka raadiyaha ee ka baxaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leenahay intii dhimatay Allah ha u naxariisto intii dhaawacana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha soo bogsiyo wararka ugu dambeeya halka naga soo gaarayeen waxa ay sheegayaan in hay'adaha dhanka gurmadka u qaabilsan dawladda Soomaaliya ay si weyn uga qayb qaadanayaan daabulaada dadka uu dhaawac soo gaaray si loo geeyo isbitaalada caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho caafimaadkooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha bogsiyo ayaan leenahay dhamaantood